بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج كارا oo aanu ka diyaarinay cali xaaji maxamuud oo loo yaqaan cali baashi oo aanu waraysi kooban kaga qabanay hoteelka uu ka degan yahay magaalada Nairobi cali xaaji maxamuud oo kamid ah siyaasiyiinta reer Somaliland dhawaana ka yimi gobolka Haysimo gaar ahaan magaalada Taleex waxna ka ogaa markii ciidamada jamhuuriyadda Somaliland ay gaadheen goobtaasi ayaa waraysi kooban oo kula yeelanay magaalada Nairobi ayaa waxa uu dhacay sida tan kusoo dhawow cali xaaji maxamuud tifiga qaranka jamhuuriyadda Somaliland marka hore aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii reer Somaliland ee ku sugnaa waqtigii ciidamada jamhuuriyadda Somaliland ay gaadheen gobolkaasi Haysimo barnaamijka kan ka horeeyayna waxa aad ka hadashay ama aad in badan ka digtay barnaamijka cali khaliif uu ka waday gobolka Haysimo markii magaalada Taleex uu ka baxayna ilaa iyo hadda uu ka abaabulayo magaalada Saxadheer marka hore sideeba aragtihan cali waa aragtaa horta arintu way isbedeshay run ahaantii way isbedeshay dadkii wax garadka ahaa ee wax garanayay arinta ayada waa ka tageen wax allaaleey waxay hadeerta ay ka wadaan oo hawsha ay kaga jiraan ma jirto waxaana xusid moodan run ahaantii deegaanka reer Buuhoodle dadkii ka soo jeeday ma joogaan Saxadheer maanta deegaanka Dibataag beeshii ka soo jeeday ma joogto meeshaas tuulada Saxadheer run ahaantii hawl yar baa ka socota oo cali uu ku fara adeegayo laakiin cali waxaan oran lahaa cali oo maanta beeshu waxay u baahnayd wax qabad nabad bay u baahnayd waxay u baahnayd wax weyn oo wali adiga laga sugay raggii kula khayr ahaa ay u qabteen deegaankii ka soo jeedeen baa laga sugay laakiin maanta qori gaari ku rakib iyo qori qaad iyo 19 dib ugu celi beesha waa nasiib darro waliba beesha tuulada degtaa waxay ku caan baxday nabadgeliyo iyo uturis ay u tuurisay dadkeeda gaar ahaan markii dagaalada sokeeyay reer Somaliland ay socdeen waxaan filayaa oo ka rajeynayaa beeshaasi inay dib u fikirto oo arintii ay ku caan baxday ahayd nabadgeliyada magacyadana ay kula baxday ay meeshoodu ka wadaan maantana aan loo baahnayn in ay dagaal iyo colaad ay huriyaan oo ka huriyaan degmada Laascaanood koonfurteeda gaar ahaan tuuladaas maamul iyo odayaal la dhaarinaya iyo waxbaan maqlayay cali khaliif arintaas oo uga hanweyneen run ahaantii nin maanta ku soo noqda tuulada Saxadheer dad ugu yeero yiraahdo mari dhaha magacii bixiya waa ka weyn yahay professor buu ahaa ra'iisul wasaare ahaa hadda waa xildhibaan dawladda federaalka ee xamar ayaan ku ogeyn marka waxaan leeyahay walaalkay walaal beeshu nabad bay u baahan tahay waxtar bay u baahan tahay gaajo iyo colaad maanta hor leh iyo wiil yar oo qorisita oo la abaabulo waa laga tagay hogaamiye kooxeedkii xamar baa hadeerto nin walba meel degayo soo xajiyay waxaan rajeynayaa cali inuu xajkan maanta soo xajiyo dhibaatada dadka ka daayo run ahaantii dhibaato looma baahna way la noqotay waa nin caqli badan waa nin aan ku kalsoonayo aan isleeyahay maanta waa nin wax garad ah laakiin talada marba ka murqaata saa darteed waxaan aad isugu dayay inaan anaga wada hadlayno toos wada hadlanaano arinta aan ka sheekaysano way suurto gali weeyday marka hawadaan u marinayaa walaalkay waxaan leeyahay walaal looma baahna maanta colaad iyo dagaal iyo wiil yar oo indhacado meel ku dhinto lagaga tago iyo baabuur qoriyo la saaro iyo tolla ay maanta Soomaaliya uma baahna deegaankaasina uma baahna deegaankaas waa deegaan Somaliland run ahaantii haddii aanay maanta Somaliland maamulkeedu Laascaanood joogin tuulada Saxadheer lama joogeen sababtoo ah Saxadheer waxa lagu joogaa waxa weeye ceelka biyaha ee laga qoday ceelka biyahana waxa laga qoday intii maamulka Somaliland uu joogay ceelka biyaha lagu fadhiyaa ceelkaas iyo iskuul iyo dhakhtar baa loo baahan yahay in laga dhiso waxa loo baahan yahay in horumar laga sameeyo waxa loo baahan yahay wiilashan qoryaha u soo dhiibtay maanta in wax la baro oo la baro farsamo yaqaan mid mechanic noqda mid koronto barta mid carpenter noqdo iskii u shaqeysta mid guryaha dhisa taas aanu filaynay maanta in maanta tollay la yiraahdo fardaha la fuulo maana filayn marka waxaan leeyahay ka waanto arinta caliyow deegaanka uu ka waantooba waxaan wax ku noqon karaa wax ku tari karaa midnimadeena iyo inagoo isku dhan in dhinacna uu nabad qaato dhinacna yiraahdo haddaan colaad hurinaya looma baahna saa darteed waxaan leeyahay walaalkay cali
hawsha iyada inta ka soo dadkii fahmeen oo saan hore u xusay reer Buuhood la tegay oo reer Dabataagay tageen oo reer Taleex wixii ka joogay ay tageen waxaan leeyahay oday baa tahay aqligaaga iyo aqoontaada waan u baahanay ee ka waanto arrintaas dadkana dabkaad gelinayso ka daa cali sida aad xustay barnaamijkaagii hore waxa aad sheegtay meesha ay dawladdu gaadhaa way ka wanaagsan tahay meelaha kale waxaad sheegtay laascaanood ka hor intii aanay dawladda Soomaaliland maamulkeedu si fiican aanu u wada gaadhin xitaa jagada aad leedahay in lagu qabsan jiray intii maamulka Soomaaliland gaadhayna ay ka wanaagsanaatay sidii hore Taleex waxaad ku tilmaantay maalintii aanay joogin ciidamada Soomaaliland iyo maalintii maamulka Soomaaliland uu gaadhay inay aad u kala wanaagsan tahay deegaamadaasi aad cali ka timi maamulka Soomaaliland saameynta uu ku leeyahay markii uu gaadhay waxaad nooga sheegi kartaa Eergaawan ka soo bilaabaya oo maamulku ugu horeeyay Eergaabo ilaa intii nabadintu ka dhacday 93kii iyo intii maamulku soo gaadhayba intii ka horeysay meel iska fooday ahayd oo qabaayil isku yaacay bay ahaayeen oo qoloba meel ay degantahay tolaayay oo dad waliba sokeeyo ku diray bay ahayd laakiin waxay gaadhay hadda ninkii wax loo sheeganayo in la dacweeyo warqad isagoo mii jira loo dhiibo oo sidii Ingiriisku dhagaxa u sii dhiibi jiray bariga hore warqadaasi markay u tagto uu yimaado oo ka garbaxo oo la isu qabsado loo yaro oo hadii bahiidankeeda leeyahay sharcigu shaqeeyo ayay noqotay oo hadda ay tahay oo aan maraka aha kiisas badan oo ka dhacay oo saa lagu xaliyay dawladda Soomaaliland mar allaale markay wax dhacaanba way soo gurmanaysay Eergaabo horta waa sidaas xagga wax qabadka ee dawladda waxay qabatay de maamulku waa wax weyn oo maamulka soo fidaa waa wax weyn wax qabadkeeduna dawladdu inkastoo dawlad aan la ictiraafin ay tahay oo ay iska tabar yar tahay laakiin dadaalkeedu waxa kamid ah xafiisyadii dawladda iyo xafiisyadii wasiirada iyo suduwayaashii wasaaraduhuba way joogaan oo waa ka shaqeeyaan ciidamadii booliskii iyo hadii bahiidankeeda leeyahay militarigii iyo ciidankii asluubta waa shaqeeyaan jeelkii iyo maxkamadihii baa shaqeeya halkaas inta ku deenaya baraaga la dhisay oo hay'ada dhiseen oo meelaha nabadda laga dhisayna waa jiraan ka kaalay laascaanood ilaa inta hadda maamulka loo sameeyay wax badan ba ka qabsoomay waxa laga dhisay dugsiga nursing schoolka ee ay wax ku gargaarayaashu ay wax ku bartaan waxa la dhisay meeshii qaaxada iyo TBda waxa la dhisay dhaqtarkii oo maamulkiisa wixiisa ay u dhan yihiin waxa jooga commission la doortay oo ah councilkii magaalada oo 22 oo la doortay doorasho ku soo baxay Eergaabana waa leedahay iyaduna intaas in leeg oo nidaam baa ka jira waxa ka jira booliskii iyo militarigii iyo ciidanka kale oo shaqeynaya oo kulligood wax deegaankuna u badan yahay saraakiil gobolada kale ka timid ay jiraan oo kuwa iyaga u dhashay deegaankan in ay ilaa iyo Hargeysa ka yihiin Barasaab iyo taliyaal na waa jiraan oo la isdhaafsaday ka kaalay ceelka Buuhoodle oo maanta aan maamulku aad uga taabaqaadin wax badan baa ka qabsoomay waxa ugu weynaan dadka u sheegaya deegaanka degan waxa weeye biyihii lagu baxsaday jiilaalkii dhaweeyay ceelkii biyaha lagu baxsaday ceelkaas waxa sabab u ahaa khayr Allah siiye madaxweynaha Soomaaliland madaxtooyada warqad laga soo qoray waxa loo soo qoray UNICEF Buuhoodle waxaan ku amrayaa inaad biyo geliso biyihii baa la geliyay waa mashruuc la yaqaan mashruuc weynaha laga dhaansado hadda ceelkii laga cabo haanti dheeri loo sameeyay dhowr meelood oo magaalada oo laga cabo biyaha laga dhaansado loo sameeyay waa waxay Soomaaliland sheegan karto oo ay sameysay iyadoo ay wax qabadkeeda kamid ah hadii la helo nabad iyo maamulka la qaatana waa intaas oo looga soo dhawaado waa ka si badanaysa laakiin mashruuca isaga ah waxa laga yaabaa reer Buuhoodle inay isweydiiyaan xagee buu ka yimid meel kale kama imaan madaxtooyadu ka yimid annaga weydiisanay annaga warqada u qoray annagu warqada noo soo qoray sidee loo doonayaa baa la yiri sidii aan u doonay buu soo qoray dabadna UNICEF baa loo geeyay UNICEFna NGO deegaanka ah oo SRO la yiraahdo ayay siisay oo dhamaystirtay waa wax lagu faano lagaga sheekaysto Nairobi maanta mashruuca isagii ka kaalay waxaad u kacdaa xaggan iyo xudun maalinta aanu tagnay 3 mashruuc baa laga fuliyay oo loo dhiibay markiiba mid wuxuu ahaa dhismihii booliska midna wuxuu ahaa dhismihii duqa magaalada midna wuxuu ahaa garoonkii kubadda
ka kaalay taleex wuxuu midna wuxuu ahaa gaadhigii taliyaha booliska oo la geeyey taleex tag taleexna intaa in leeg baanu ka fulino waxaa laga fuliyey gaadhigii booliskana waa loo geeyey in yaroo colaada ka jirtayna nabadeynteedii baa la wadaa hadda soo gabagaboobaysa anugu meeyihi maamulka kuma jiro Somaliland laakiin intaas waa intaan odaynimo aanu ogahay raggii ku shuqul lahaa waxaan anugu ogsoonahay oo kale wasiirka caafimaadku wax badan oo badan deegaanka bari inuu ka qabtay madaxweynuhuna warqad buu qoray hay'adaha u qoray wixii mashaariic ah bari ha loo badiyo taas horta waa intii wax qabadka marka haddii la helo nabad oo xagga la isugu luguduudo oo sida ay tahay maamulka loo fidiyo oo colaada la daayo loo guntado wax qabadkii bulshada wax badan ayaa soo kordhiya saa darteed anigu waxaan leeyahay oo mar labaad ku celinaya war dadkaasi nabad bay u baahan yihiin waxtar bay u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin ee maanta uma baahna colaad marka colaada tuulada saxdheer ka soo socota odayaasha wada waxaan uga digayaa inay dani ku jirin oo iska daayaan waxaan doonayaa deegaanka dadka deegani inay cod wax ku diidaan laakiin inay xabad wax ku diidaan wax danoo ku jirta ma jirto waan la soo dhaafay xilliga waa wax bir hore ahaa laakiin anaa idhi maanta ninkii yiraahda waa dhibaato rag badan baa soo maray deegaankaas oo yiri anaa idhi oo la yaqaano deegaanka laga yaqaano waxay ku dambeeyeen waa la ogaa ali duulana kamid ah afxakama kamid ah artan boos baa kamid ah odayga abtiga yiri adduunyo khatal ee aadan galeer baa kamid ah marka maanta walaalkay cali inuu yiraahdo anaa idhi saanay noqonaysaa dhibaatada ay leedahay anu waxaan leeyahay hawsha iyada ah hawl ay dani ku jirta maaha aynu hawsha dhigno horumar iyo nabadna aynu raadino wixii aynu tabananana waxaynu isu qorlaabanaa cid ay ka goodayna waa la yaqaanaa aad ayaad u mahadsan tahay cali baashe waxa jira wadankan Kenya ku noolahay ninku hadduu xusbi ku jiro oo xusbiga marka baxo oo intuu xusbi kala galaad inuu xusbigii dib ugu soo laabto ma suurta gasho dawladda Soomaaliland waxaad arkaysaa madax intuu wadanka ka tagmo wadanka la tago oo wax ka noqdo wadanka hadana intuu ka yimaado wadankii dib ugu soo laabta arrintaasi sayana kula muuqata wallahi baasha horta waa loo kala daran yahay beelaha deegaa ee Soomaaliland waxa dhawaan la igu sheegay in loo bixiyay beelaha darafyada iyo beesha dhexe qoladayadan deegaankayga bari ka soo jeeda yaa taa u badanoo waxaan u dhaxaynaa had iyo goor Garowe iyo Hargeysa run ahaantii aan rag badan oo intay tageen taa haddana ka soo noqday haddana tagay haddana ka soo noqday waa jiraan laakiin nin weyn oo siyaasi ah socod waa looga fiican yahay ninku siyaasigu wuxuu rumaysan yahay inuu ku shaqeeyaa fiican oo rag baaba loogu xidhaayo 30 sano jeel ku gala oo weli waxeeda ay rumaysnaayeen haddana ka guul gaadhay iyagoo intaa xidhnaa marka taa waxaan u daynayaa run ahaantii intaa dhaafi maayo odayaasha dee hadda dhawaan socday inkastoo ay yihiin odayaal howlgabahoo ay sheegeen iyagu ay yidhaahdeen waxaanu nahay howlgabkaygina waxaanu ku qaadanaynaa Garowe taa iyada dee waxa hadda lagaga hadlo oo kale ma jiraan laakiin socod kulli waa looga fiican yahay odayaasha anu waxaan u bixiyay laba gardaaqo waa balaayo markay Hargeysana ku furan tahay oo dhaqan iyo dhigin ka dhaxeeyo xaggana isri iyo dhalasho iyo wax ka dhaxeeyaan dadka shacabka la gareeyay inay si kala wada shaqeystaan wada socdaan laakiin siyaasigu meesha dadka danta ugu jirto inuu ku qalajistaa u fiican aad ayaad u mahadsan tahay cali xaaji maxamuud cali baashe su'aasha ugu dambaysan cali ku weydiin lahaa waxa weeye maadaama aad tahay oday weyn oo siyaasiya rugcadaaya wadankii ka yimi xog fara badan haya maxaa baaq fariina ee aad u diri lahayd dadka reer Soomaaliland guud ahaan ugu horreyn horta dadka reer Soomaaliland guud ahaan waxaan odhan lahaa Soomaaliland meesha ay marayso maanta waad ogtihiin wixii Soomaaliya la odhan jiray berigii hore ee isku midka ahaa intii aynu kala soo noqonnay dawladnimadeena iyo wixii naga dhaxayn jiray meel fog baynu sii soconaa run ahaantii waxaana dhaliyay shacabka waxa dhaliyay siyaasiyiintii hogaaminayay marka reer Soomaaliland xaquusanina meel fiican bay wax marayaan cid inaga horreysana ma jirtee taas waxaan odhan lahaa xaquusanina waa guulaysanana insha Allah taala
meeshaynu marana meel ka wacanna waa gaari doonaa waxaan kale odhan lahaa xagga iyaga deegaankayaga deegaankaas isagii run ahaantii waa dambeeyaa waa ka dambeeyaa gobollada kale waxaana keenay jahawareer iyo siyaasad xumo yaa heshay degaankii inaad haddaad tihiin qurba joogta u soo jeesataan oo waxa danta ahee dadka islaanta adhiga raacaysa iyo odayga jooga halkaa iyo xoolaha iyo cawska iyo deegaanka meesha ku yaalla inaad u soo jeesataan oo saad u horumarin lahaydeen ee dadka ay isku halbeegga ahaayeen aad u gaadhsiin lahaydeen baa laydinka sugayaa saydan colaad u saacideen oo aydan wax ugu bixiseen baa laydinka sugayaa waxaa laydinka sugayaa waxa dhabta ehi jira inaad ogaataan soomaaliya oo dhan ayaa colaaddii haddeerto laga dhammaystiraya oo dagaal lagula jira oo dawladaha adduunka u soo gurmadeen innagoo reer somalilanna oo haddana reer sool iyo sanaag iyo buuhoodla ah idinkoo qurbaha joogay fadhi ku dirirka aad haysaan iyo waxaan aad taraysaan inaan dani ku jirin looma baahnee waxaad ka fikirtaan saad carruurta wax u bari lahaydeen saad caafimaad u samayn lahaydeen saad biyo u qodi lahaydeen biyo badan baabaad qodeen qolyihiinna dibadda joogo anugu aan ogahay kuwa buuhoodla ay ka mid yihiin ceelasha waxaan kula dardaarmayaa waxa jira dhabtaa ogaada yaan laydinku wareerinin oo ha ku bixinina wixiinna iyo shilmadiinna waxaan jirin oo aan dani ku jirin laakiin dalka waraysta deegaanka waraysta waxa jira ogaada power iyo siyaasad haddii la doonayo maanta ninka deegaankaa u dhashay meeluu wax ka soo dooni kara maaha aan ahayn wax u qabo laakiin meeluu wax ku siyaasadayn karo oo uu is yidhaahdo halkaa wax ku doono rag wax ku qaybsada meeshaas ma taallo meeshaa waxaa jooga dad laga tegay oo maxaasa oo aan waxba haysanin oo u baahan ummadda inay gaadhaan oo u baahan nabadgelyo ee aan colaad u baahnayn marka baaqaygu waxa weeye qolada qurba joogtay reer somalilan ee maanta ka tugtugta roonayna fadhi ku dirirka iyo kaftanka iyo wallahi waxaana saa idiin gelijin iyo berigii saasaanu idiin galnay ha ka daayeen qolada iyaduna deegaanka iyagiihina ha garowsadeen oo ha ogaadeen oo aniga maanta hay maqleen meeshaa anaa jooga anaa deegaan walba maray waxaan nabad iyo wanaag ahayn oo inoo bannaan ma jirto wixii la helayana ee horumarana Soomaalilandnimaan ku helanay meel kale ku heli mayno taa waa wax la wada og yahay waa wax deegaanka ka dhaba calaamada isku tallaabteena saaran aynu iska qaadno ee lama tagi karayo halka oo maamulka ma jiro intii haddeerta maamulada soo gaareen sidoo hore way dhaantaa iminka laascaanooda oo kale $1 milyan oo dollar baa loo hayaa biyo gelinteeda sarfeyga ogaanshaha meeshii biyaha macaan looga keen lahaa iyuuda bixisay Nairobi baa laga bixiyay waa la hayaa 100 kilomitir haddii jiraan waa looga soo jiidaya biyo macaan baaritaankoodii baa yaa lagu jiraa marka anu waxaan odhan lahaa odayaalow hawsha iyada ogaada oo waxaan qori lagu iibinayo wax rasaas lagu iibinayo iyo wax dagaal lagu oogayo lacag ku bixinina waa maasantiin aad iyo aad baad maasantahay cali dhawaan waxaad aadaysaa waddanka Soomaaliland maadaama waddanka Soomaaliland aadayso caasimadda iyo Hargeysa ayaa ku hakanaysaa laga yaabaa inaad ku ekaato mise ilaa waddanka waa soconaysaa oo iyana xaaladda jirta tripkana waad soo eegaysaa iyo saamaynta ay maamulkii markuu meesha wada gaadhay ku yeeshay su'aal aad u fiican waxaan tegayaa haddii alla idmo waddankii baan tegayaa Soomaaliland caasimadana ka bilaabaya haddii alla idmo kolley odayaasha maamulka joogay maamulka sare joogay xukuumadda ilaa madaxweynaha ilaa iyo wasaaradaha ilaa iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo golayaasha guurtida ee xagga ka soo jeedana waa kulmaynaa baahi badan oo jirtaana way jirtaa kolley aan isugu qorlaabi doono kulligayo kana tashan doono markaan taa ka tago haddii alla idmo deegaankii baan tegayaa ilaa Ceergaab baan soconayaa ilaa Taleex baan soconayaa ilaa Laascaanood baan tegayaa ilaa Buuhoodland haddii alla idmo aan gaari doonaa waxaan isleeyahay tabliiqii ahaa war dantu waxay ku jirtaa Soomaaliland aynu Soomaaliland wax la qaybsano asalna waynu ahayn waynu ku jiray weligeen tii baan la dhex mari doonaa haddii alla idmo waxaan isleeyahay waad ku guulaysanaysaa xildhibaan waxaan odhan lahaa wasiirada iyo golayaasha beelaha ka soo jeeday halka joogaana riyadoodii ay ku riyoonayeen yaa run noqotay marka ku shaqeeyeen ummadii ha u shaqeeyeen wax walba maaragtay yaa ka horeysiiyeen
deegaankii ay ka soo jeedeen ay dhibaatada ku qabeen maamulku uusan gaadhin mar haddii maamulkii gaadhay wixii loo qaban lahaa iyo taladeedii waxay isugu tageen aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay cali xaaji maxamuud waraysigaasi gaarka ah ee aad siisay TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ka howlgala magaalada Nairobi daawadeyaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa waraysigaasi gaarka ah ee aan ka qaadaynay cali xaaji maxamuud oo loo yaqaan cali baashe inta aan ku kulmi doono barnaamij mid kan la mid ah anigoo Cabdilaahi Cabdi Caliya iyo kamaramaanka oo Maxamed Caliya waxaanu idinkaga tagi doonaa sida iyo sarag dambe oo xiiso leh